adduunyada sideedaba waxaan la arkaynin ma lahan, waayo waxaan dareemayaa noloshayda inaysan wax macnaa lahayn. waan iska noolahay mooye mowqifka nolosha ma haysto, waan iska socdaa mooye wadda ma haysto. qof walbo bini'aadan ahna xaaladan oo kale mar ayay soo martaa, waana marka aad nolosha kaniya jabto, xanuuno badan oo aadan xamili karin aad dareento, qalbigaaga xataa culays uusan xamili karin aad ka dareento. run ahaantii qof walba jecel wuu soo maraa, laakiin xaaladaha ayaa kala adag. dadkana isku mid ma ahan. dadka qaar jeceylkooda guul ayay ka gaaraan, halka kuwa kalena ay arkaan xanuunkiisii murugadiisa. kuwa qaar waxayba ku fikiraan jeceylka inuu dembi yahay ama inuusan iyaga u wanaagsanaynba. dadka qaar jeceylkooda ayay la aamusaan, weliba waxay ka cabsadaan inay sheegtaan oo ay ku guuldareystaan. laakiin runtaa waxay tahay jeceylka inaan annaga ka maarmin oo aan u baahannahay xili walba, balse waa wax ugu xanuunka badan ee laysku dhaawaco. maxaa yeelay nasiib ayay leeyihiin dadka jeceylkooda hela. waxaa kaloo ka nasiib badan dadka intay jeceyl sameeyeen bisna guuru beddelay. waxaa kaloo jira dad intay jeceyl sameeyeen laakiin aan guul ka gaarin. jeceylka wuxuu ku wanaagsan yahay natiijadiisa inay guul noqoto, si aysan noloshaada qabiyo u noqon.